shirkadda dayuuradaha Ethiopian Airlines ayaa joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland maalintii labaad kadib markay shaashada hore ee garoonka Bole International Airport ku soo dhajisay in la cancel gareeyay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Ethiopian Airlines ayaa wax faahfaahin ka bixinin sababta ay u joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland muddo 2 maalmood ah balse ku soo dhajisay derbiga iyadoo kumanaan shacab ay ku go'doonsan yihiin gudaha airportka Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halka dhinaca kale kumanaan Somalilandra iyo hay'adaha caalamka ay ku go'doonsan yihiin gudaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. dhanka kale xukuumadda Somaliland ayaan ka bixinin wax faahfaahin ah sababta Ethiopian Airlines ay u joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada Hargeysa maalintii labaad balse kumanaan shacab ayaa la dalaadhacayo xaaladda soo wajahday ee ay ka duuli waayaan gudaha Somaliland una soo duuli waayaan isla Somaliland. tan ma jirto wax faahfaahin oo ay ka bixiyeen labada dhinacba iyadoo dadku ay ku andacoonayaan sababta xukuumadda Somaliland ay uga aamusan tahay arrintani ilaa iyo haatan. dhanka kale duulimaadyada Dubai International Airport ayaan ka soo degin ilaa maalintii saddexaad garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa iyagoo kumanaan shacab halkaasi ay ku xaniban yihiin. arrintan ayay dadka qaarkood ku macneeyeen in hawada Somaliland oo xun awgeed ay diyaaradu halkaasi ka degi laayeen meesha ilaa xogaal ay sheegayaan in garoonka Cigaal International Airport uu burbursan yahay taana ay sababtay in aan laga soo degi karin. arki maayo flight no waxa laga yaabaa in cancel gareeyo flight ugu dambeeyay ilaa inaan weerartay jirin wax oo arki karaan ayaan saameysay dhammaan caalamiga Cigaal International